waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh arday sidii inoo caadadahay halkeenii wada casharadii ka sii bilaabi doona inagoo halkii marisay buuga aan marnaba ka weecanayna stabta buugu yaala maadaama uu yahay ka imtixaanku kaga imanay u wadayna una kala horeysayna una hormaynayna kuna dadaalayna inaan sharaxaadaynu ka fogaanka buuga shareero aan soo qaadan waa maxay shareer ama shareerid shareer oo wax la shareerayo dahsoon mar kale waxa noqonaysaa shareer qofkaas Soomaalida waxa sheegatay haweyde waa lagu shareera yaani hadalka lagu xidhaa oo gunta la soo taabsiya dabeetana sida loogu shareera marka leey waa lagu shareera waxa sheegatay haweyde waxa weeyaan waxaan ay ku murmaysaa ee gunta la soo taabsiya waxa ma qaadanaysaa may hadaan qaadanayna adiga cirka roobku waa lagu shareera qofkaas hadaba shareerada qaadayna inkastoo shareeradaasina aan ka marnayn hadana shareerada qaadayna buuga sida inoogu taala waa maxay shareero marka niraan waxaan oranaa shareero waa markastoo isu ekaysiinta laga dhigo mid dhameystiran oo aan wax farqi ah u dhaxay markasta oo aynu waxaan isu ekaysiinayna ka dhigno kuwa 100% ama si dhameystiran isugu eeg ayaa la yiraahdaa shareere waa laba humaag ama laba muuqaal ama laba shay ama laba xilli ama laba xaaladood oo laga warramayo oo si dhameystiran ay suugaantaynu adeegsanayna isugu ekaysiinayso oo haddaan kugu dhaha Axmed sida aabihii buu u talaabsadaa yaani waa kay horan dhiganay taas oo astaanta qori wadaagaan aabihii wax weeyaan in isku si u talaabsadaan balse haddaan kugu dhaha Axmed aragtay aabihii aragtay waxaad filaysaa haddii aad Axmed taqaano oo suuqa marto aabihii ka soo horbaxo inaad si fiican u garan karto waayo waxay isugu eegayeen si dhameystiran qosolka socodka timaha waxa weeyaan dhoola cadeynta indhaha suuniyaha si dhameystiran meel looma kala duwan Axmed aragtay aabihii aragtay baa lagu ama Faadumo waa hooyadeed dhan kasta oo laga eego waa hooyadeedu halkan taagan kaanahu maanuhu waa tayraan marka waa isu ekaysiinta wixii la isu ekaysiini waa mideynta laba humaag oo si buuxda la isugu xiriirsho waxa la isu ekaysiinaya ama la isla doonayo la isku xiriirinayo la isku maakumayo ayaa si dhameystiran la isugu ekaysiinayo bal tusaalahaan waa geeri naagta ratiga ku gar qabanayn isagoo sheegay dhibaatada ay leedahay gabadha hadii aanay kolka reerku geediya aanay hayinka ku hogaamin karin ayaa wax barbar dhigaya oo ekaysiinaya geeri in geeri kugu timaadiyo in gabadhaadu awlka hogaamin kari weyda waa laba mid ah waxba kuma kala duwana wuxuu waa geeri naagta ratiga ku gar qabanayn naagta ratiga ku gar qabanayn ama aan ku hogaaminayn waa geeri waxba kama dhacdo isma dhaamayadii geeridu wuxuu waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaamay halkan waxa ku taal waa dhagax naf loo hayjada dhigay ilaahay waa dhagax ilaahay intuu naf kaliye geelu waa maxay waa dhagax waa maxay waa geel yaani labada hadaad mid taqaano kale way ku fuuday inaad taqaano waa adiga caashiq waa armi hawluhu waa adiga caashiq la doonaya waa adiga waa hawluhuna waa armi waa adiga caashiq markuu leeyahay hadii la raaca caashiq waa sidii hebel waa sidii waa sida caashiqa xukuma kala duwana hebel waa maxay hebel waa caashiq waa maxay caashiq waa hebel waa yaani isweekaysiintoodii baa dhameystiran isagoo si wada wuxuu yiri halkan geelubo ayaa noolba tii qaylisa waa ibliis falane irdha qaado aashaana soco aad yar socodkaaga is ogow afkaagana yasiro dibtu waa door ayaa noolba tii qaylisa waa ibliis falan ibliiska falan iyo gabadha mar walba hadalka badan leh waa isku mid yaani hadii ay ibliis tahay hadii aad ibliis doonayso waa gabadha mar walba qaylaysa
haddaad gabadha mar walba qaylinaysa cidda qiimatishaa doonaysana waa ibliis kaa falan weliba waa ibliis weliba sii falan shareeradu waa in waxa la isu ekaysiinayaa mar walba si dhammaystiran ay isugu ekaadaan oo haddaan kugu waraahdo masjidka suuqa ku yaala iyo masjidka Kuwait ku yaala waa isku mid ama masjidka halka qofkii dhisay baa kana dhisay baa laga yaabaayo si dhammaystiran bay dhiseen ahaan iyo qaab ahaan isugu eegin halkii ku yaalaan halka lagu weysaysto halka labada masaajid wax faraq oo u dhaxeeya ma jiro marka shareero wax kasta sheegayso wax faraq oo u dhaxeeya ma jiraan wax si dhammaystiran buunbuunintu waa qaybta ugu badan ee suugaanta adeegsato oo maxay noqonaynaa waa mar kasta oo suugaanta la tibinaya sidii dhabta ahayd si ka sareysa loo sheego mar kasta oo suugaanta sida ay xaqiiqada ku tahay himka waan socda anoo socda dukaankeyn war dheeray sidaabaad ugu tiri waxa ku wuri waan sii boodo waan soo booday boodada ilaa halka helicopter bay hidi haddaan sii booday ilaa suuqiyaan soo boodi karayo dunida boodan ku marina ahmiyadu leh waxaan buunbuuninaya dheerayntaydii ayaan korkordhinaya buunbuunintu waa mar kasta xaqiiqada laga warramayo siday tahay rasmiga ah si ka sareysa loo sheego ayaa loo yaqaanaa buunbuunin ereygan halku ka yimid waa buun loo geeyay buun hadee buunan bay isku noqdeen buunan ama markaasay noqday buunin oo sidee buunbuunin u tahay iminka qalab baa jira ciidanku tumo ama caruur ha ahaato ama gari ha ahaato ama ha ahaato buun kan la afuufay ciidanku afuufaya marka ciidanka buunka ay afuufaan waxa laga yaabaa in halka meesha 4,000 oo askari maraya dabeetana ay u yaalaan 4 madax oo min kuna kaartadaga marka 4 madax oo min kuna u yaalaan halkana waa 1,000 halkana waa 1,000 halkana waa 1,000 halkana waa 1,000 waxa laga yaabaa ciidanka kasta inuu ku kala amar qaadanayo haddaynu ka soo qaadno hal buun oo amarada cid hogaaminaysa waajibaadka qaybinaysa ay siinayso dadna halka marka buun la afuufo waxa la garanayaa cadawga kale halkan jooga buunka cadawgan afuufayo ayuu ka garan karaa tiradooda marar baa dhacda ciidankii tira yaraado ciidankaas markuu tira yaraado waxa dhacaysa in halkii kunka laga doonayo 100 laga dhigo 400 baa u noqday ciidankii 4,000 halkii galaan lala doonayay 400 waxa la sameeyaa in sidii madaxyada inta loo dhigo loo kala dhiibo 4 buun oo leh hadana halka buun waxa loo naqaan in 1,000 askari tumaan 1,000 askari baa la yareeyo oo la soo yareeyay maadaama ciidanka tiradiisu yaraatay waxa laga dhigayaa hal 100 baa laga dhigayaa 100 kasta buun baa loo dhiibay ciidanka halkan jooga markuu buunka iyo gurxan ka maqlo wuxuu moodayaa in 4,000 oo askari halkan waajibaad ku kala qaadanaya oo kaartooyinka dagaalka oo ciidanku haday tiradiisu yaraato farsamooyin baa lagu badiyaa cadawga lagu baqageliyo waxa kamid ah dirirtii Aynu Jaaluud Sayfuddin al-Qidsi kula galay nimankii tartaarka ah ee ciidanka uu kol badriiska inta ka soo bedelo buurtan ha ka soo dega iyagoo isla ciidankii uu ka soo degay inta xaggan ka wareegan haddana la doonayay in cadawga lagu baqageliyo sidaas la mid ah waa buunka ciidanka lagu badiyo dabeetana hadii la fahmo waxa la oray war way isbuunbuuninayaan oo sidee soo buunbuuninayaan buunku bay isku badiyeen ma aha ciidan badan ayaa la oranaya يعني أفرتي كون ما دقمان بون كهدي ده سهم كوكل سوق هذا على أروح عيدك وعيد يرى بون بونيني أو بون كنا يسكب بدين يعني وبون يبون هالك سكت بون لوكين وح لبون بوني ولا كردية أحد وبحي بركستا حتى بس حقيقة هاي
حتى الحريق دي ترى حسابتك كسو قادنا هدي أي سيرو تاي قرادي حسابتها نقر هلا هذا ندين كقلقلو عنه halka ay siirooga u qaataan qolada xisaabta inagu waxaan u qaadanaynaa inay runtii tahay inay runtii tahay markasta oo runta aynu xagga positive-ka ama xagga togan u kacno ama xagga siyaadada iyo kororka u kacno warkeenaas wuxuu noqonayaa mid la buunbuuniyay halka soo qaad imka qof hebel oo xanuunsanaya inuu nimi waxa runtii inoo sheegay waxaan odhanayaa waa ladanahay isagoo jiifay inuu nimi waxaan ku dhawaariya Axmed iska waran wuxuu Axmed waa ladanahay Axmed waa ladanahay waa markuu runtii inoo sheegay uu ladan yahay sidii shalay uu dhaamo ka qoomadi ka soo baxay ibn la arkayna laakiin maxay inoo odhanayaa waraabe ka caafimaad weyn waraabe ka caafimaad weyn markuu leeyahay waraabe ka caafimaad weyn waa maxay waraabaha had iyo goor waxa lagu yaqaan caafimaad badnaan oo Soomaalidu sida lagu yaqaan inta badan waraaba meelaha iska yaalo waqtiye ama dhintay lama arka ama jiilaalka ama abaartu dishay laakiin inta badan waraabuhu xunbu sababsaday u badan tahay dabeetana waa sababta Soomaalidu u aaminteen waraabuhu yahay halbeeg caafimaadka lagu cabiro oo aad u sareysa tayadiisa caafimaad dabeetana waa tan le ma weyn oo bunbuunaya caafimaadkiisa xaaladiisu وحكورنا ورابن كعف مدوين أرجع غير محمود كورد أرجع غير محمد عيداس وكبدين عيداس أيو كبدين وهدي عيدا كبطين تنعيد سواء حنتوبنا أنا سواء قادنا أنا هبل أنت تيري أرجع غير بلا تيري تسعب كن مجي أرجع أفريقيا شوكا وحلقة يا كان عيدا ينو كبطو هذا نوع بونبونين وشعر كلا تورا والأمي داعي وشعر كلا تورا ده كلا يسوي والأمي داعي marka boonboonintu waa markasta oo xaqiiqada jirta ee rasmiga ah si ka sareyso oo ka duwan loo tabinayo oo maxaan oranaynaa inay yahay bidaan iyo dumar baaxad iyo xoog bilic baad u sidataa inay yahay bidaan iyo dumar baaxad iyo xoog bilic baad u sidataa oo hadii ay bilic u sidato maani waa rikoorka gasheenay dunida ogaateen aan wax qof macruuf noqon ibn nuur markuu daarsan ku leeyahay hadii ay dumarka baaxad u sidato ugu dunida ugu xoog weyn la tahay dunida isla garan lahayd waxa noqon lahayd qof macruuf oo isla yaqaan inay yahay bidaan iyo dumar baaxad iyo xoog bilic baad u sidataa taa marka ka baxay uluf tolkay aradka fuula kumanaan faras ay tolkay aradka fuula oo si wadana maxaan oranaynaa wuxuu biyanimo u keenta bas bilicda iyo jaahiyo basarka iyo muuqabo waa mid aanu bogoyo aanu beera qaayo biyanimo u keenta bil ku Soomaalida ina tan hadii ko biya ku keento bil baa lagu qadiyo biyanimo u keenta bil ku Soomaalida sulaaqay aragaagu nafto u samirsiiso saddex bay ku qada saddex maalmood hadii afkayga aan biyo xitaa aan saarin aragtidaada marka quraba inta ku filan Afrika iyo Asia ilaa aradka New York islaamka iyo masiixiga hadii la isu soo urusho midaan adiga ku dhiga la waawmiyahno kali islaam dii abwaanku uu soo ka tirkoobinayso laakiin hadii isagu xuniyay hadii la isu soo ururiyo dunidaas oo dhan si inaan tawaamaano in dhamaantooda ka sidan lahayd iyadu gaalka islaamka buddhismka catholic cid kasta orthodox hadii la isu wada keeno tawsiiteen iyadu hal lahayd buniyay قفين مقعان مركز تقفين وقف لوجي عين وحنا رجعنا هذه الشرالة عينتني واحد بدي الشاع فلكن هوري أما فلك وحن هوري سيديين وحن كوري عطين وواحد ومكان العادي لكن سمورد محا يضع عضبا مري خد كان فلك كل عام وحن نقضي عطين حرور بانتمي
falkiisa qabtay wax noqday budayn sidaasay tahay markasta oo aan ka geediyayna waxaan sidii ay ahaayeen ayntani way rartaa oo bal imka qof buu ahaa qof waxaan qof ahayn baa la keenayaa dadna waxa la odhanayaa qofayn waxay noqonaysaa googoyn waxaan googo'nayn baa la googooyay markii la soo raray muxuu noqday wax googo'an oo falkii dhacayna wax noqday googoyn markaa qofayn waa waxaan qof ahayn oo qof laga dhigayo inagu ilaahay baa awoodda lahoodii curi ama dhagax ama ciid ilaahay baa qof bini aadam ka dhigi kara inagu awoodda misdano laakiin awooddan isdana waxa weeyaan inaynu afkeena iyo aftahmadeena kaga dhigno waxaan qof ahayn qof waxaan hadlayn inaynu kaga hadalsino calankayga nuurow nidar baan hor u galay iyo weliba nayruush haddii aanan soo noqon allahayow ku nabadgeli calanku kaa guri maayo warkana ku odhan maayo alla ilaahay rag baa ii kacay mahadsanida ku soco dagaalka markaa qofayntu waa markasta wax kaan qof ahayn aynu la macaamilo sidii qofka waynu la doodnaa waynu la kaftanaa waynu la garnaqsanaa oo haddaan buuggan la doodo aan buuggan idhaaho buugyaho casharada kugu qoran iyo xafid buugyo ha guurina halkaagaa joog waxa weeyaan waa qofayntu markaa waxay noqonaysaa wax kastoo aan qof ahayn aan la hadalno waqtiyahow dhulkaaga iyo adduunyada dhiskeedii iyo dhoobadii iyo camuudii iyo kugu dhaarshay diintee dhalinyaro intaan ahay waxaanii dhammaynay nolosha sharaftayda dhayray hay soo dhaweynna dhalinyaro intaan ahay waqtiyahow dhismaha guud dowladaan dhaliilo dhibaatada iyo gaadhiya ka warqabin dharaar qura dhaqankaan ku noolahay dhalinyaro intaan ahay hay soo dhaweyn waxa weeyaan waqtigii baa lala hadlaya si toosa baa lala hadlaya qofayntu maaha in laga sheekeeyo waraaba beri halkaa mari jiray laakiin waxaa qofayntu in waxaan qof ahay si dhaba loola hadlo sidii qofka kale loola dhaqmo cartanay camuudda iska qaad ceelkii reer magan nimankii ku caawimi jiraan ku cidi ka noolayn cartan waa hal magaceed hal baa lala hadlaya wuxuu caynabow coliyo guluf haddaan caata kugu raagin waxaad coodi weyntahay haddaanad caday ka dhubnaan faras baa lala hadlayaa waa loo hanjabay ma kullale ninkaan meydalow wuxuu yidhi lur miyaanad arag meydalow waxaa dad leeleelay meel dhaanku laba dhaxay miyaan kugu ladaabsi adugu faras buu u garnaqsanay wuxuu ma kullale ninkaan meydalow kugu listaameeyo mise waan ku lumiyaa intaan looriga kaa raacin halkaana waxaanu kaga baxaynaa qofayntii waxaanu garanaynaa in qofayntu ay tahay markastoo waxaan qof ahayn sidii qof loola macaamilo loola dhaqmo loola xidhiidho loola doodo loo maago loo dhaleeceeyo intaas oo dhow qaadan kara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkaas inuu joogay 10